qalan mayso jawaabuhu. Jawaabihii la siiyey inay maaragtay ay dabaqeen iyo wixii ay kala kulmeen. Idinkaa marka isgaranaya, toddobaadkii hadda lasoo dhaafay iyo kii ka horreeyey khaasatan waalidiintii su'aalaha looga jawaabay inay soo qabsadaan microphone-ka baan jeclahay. Soo qabsada insha Allah. Yaa toddobaadkii hore wax su'aalana weydiiyey oo looga jawaabay. Maxaase kala kulanteen jawaabtii la idin siiyey? Sideese u dabaqdeen? Sumaya muud gal walaal. Assalaamu Calaykum asalaam waraxmatullah. macluumaadka waa seen waaye toddobaadkii hore waxaa ii shaqaysay aan ku weydiiyey inan yaroo 2 bar jirta koma seersan gabadh yaroo 7 bilood jirta Waa kuma qof ka hadlaya? Zainab Khaliif Zainab maxay ahayd su'aashaada ku saabsanayd toddobaadkii hore? waxay ku saabsanayd inanta yar markaan hayo oo caanaha siinaya ama siixinayo Jir ayaa weeye ii tan ooy wayna dili jirtay mise jir weeye intee bilood jira? 7 jirtaa ta kalena waxay jirtaa 2 bar kalena 2 bir bay jirtaa marka way ka maseeri jirtay wayna dili jirtay. haa Waa gartay. Maxaa marka lagugu yiri samay? waxaad igu tiri waxa samaysaa la sheekayso banaanka u saar nacnac u soo iibi waxaad ku tiraahdaa adigu nuunaha yar waa ka weyn tahay iyadu waa wax yar xafaayad adigu waad ka weynaatay waxaan ku rahdaye xafaayad waad ka weynaatay iyadu waa wax yar hadeer naaska waad ka weynaatay iyada hadeer naaska jaqaysa xafaayad loo xiraya adigu waad ka weyn tahay hooyo marka waa walaasha ha dilin kadibna hadeer alxamdulilah sidii way dhaantahay oo way fiican tahay inta kale maysan seexan jirin habeenkii oohin iyo qaylo anagoo faraxsan baan hadeer seexanaa maasha allah Marka waqti intee leeg bay kugu qaadatay? Maalin kastaad u sheegi jirtay waa bixin jirtay waqtiga nuunaha yar 7 bilood jira ka hurdo iyo adiyada waqti siin jirtay. Maxaa kaleeto u muujisay inta aan ahayn? barqadii oo kale barqadii baan bilaabi jiray marka Ya ay tayriga saxdo barqadii baan la sheekaysan jiray marka tayriga saxdo aan dibadda la u sheeg soo jiray macna u soo iibin jiray sax marka way fahantay hadeer waan u dhiibaayo dhabtii ku qabatayo ma disho dilka waa joojisay. haa Awal sababtay u dilaysay waxay ahayd faham la'aan adiga ku haysata iyo oo aadan fahamsanayn in ilmahan yaroo 2 sano iyo barka jiray masayr hayo attention kaaga baahan yahay iyo feejignaan inaad siiso iyada laftigeeda aad u soo jeedsato oo tixgelin siiso. haa Fahamsiisana in nuunahan yar uu walaalkeed yahay walaalkeeda yahay aan wax qabsan karin sidaa aawadeed aad waqtiga badan u geliso intii bay marka fahamtay way haa ogolaatay marka. wayba dudi jirtay xaggaas iga jeesan jirtay albaabka iga soo xidhin jirtay maxay kaloo waxa kaleeto ku jiray soo maaha su'aashaada nuuna iska dhigi jirtay haa oo ah say isaga dhigi jirtay maynuuna iskamay dhigi jirin waxay dhihi jirtay aniga oo ihay ya aniga ii soo jeeso dhabtay igu qabay ku dhigi jirtay haa marka xaggan aan hadda dhinacii aan seexin jiray maahay dhinacii kale aan mariyey aan ku yidhi hooyo halkan soo seexo gabadha yar way dhaxmoonaysaa dhaxanta dhinacan kasoo mar dhaxanta ka celi kadibna hadeer caadi awal lugteeda hadday saa u taabato way ka diiqadoon jirtay oo hadeer way la seexanaysaayo saasay ula jiibsanaysaa iyo haddii kusoo dhawaato ma dhibsanayso markaa u sharaxday. haa markaan u sharaxay Mm. Marka caqabadaas waxaad ku xallisay oo hadda fahamtay ilmuhu ama ha yaraado ama ha weynaado 2 sano iyo bar ilmo markii aad wixii u sharaxday waqti siisay banaanka u saartay si degan ula hadashay inuu ku fahmayo oo haa dhaqankii uu samaynayey uu markaa halkaa ku joojiyey haa dhibkii kaa haystayna uu yaraaday. haa maasha allah. markaa waa su-aal mahadsan kale aan qabay zaynab khaliif waa mahadsan tahay su-aashaada waa usoo noqon doonaa horta bal dadka taaga oo kale mudgal marka walaal. السلام عليكم calaykum salaam. أستاذة ما سنت جزاك الله خير ما لو قدر سن كرا قف wax faa'iido dadka ma la wadaagi karaa laba ya qodob waxaan rabaa laba qodob walaasha inaan ku booriyo qodobka koowaad caruurta waxyaabaha sababa waxyaabaha hadda walaasha sheegayso keena kow waxaa ka ah ilmaha marka hore hooyadu inay markuu dhasho ay iyadu u aada ugu taxalluqo oo tusaale ahaan waxaa uga jeeda hooyadu ilmaha markay inta badan hooyooyinku waxay sameeyaan
ilmaha naaska jiifkay ku siinayaan, iyadoo la seexanayaa, gogosheedu kula seexanayaa, urteedu baranayaa. duruuf adduun baa la jooga, hadday xanuunsato, hadday ilmo kale uur yeelato, ilmihii lama barin inuu maaragtay hooyada ka go'naado. Marka waxaan kula talin lahaa hooyooyinka ilmaha kow si habeenka u dhashid inaad xool gaara u samaysid, sariir gaara, inaad nuujisid, waqti intaad meel fiican fadhiisatid aad hadhow meeshii seexisid, sidaa uu kula qabsado inuu kaa go'naado. Berrito hore adigana ku dhibi maayo, ilmo kalena kuma sayri maayo. Ilmo isku filan oo dee jacaylkii iyo waqtigii aad siinaysay hooyanimadiina ay maaragtay u dheer tahay, kaana go-an oo qof isku filaan karo oo haddii duruuf kugu timaado maaragtay cid kale kaa caawin karto ama kaa maarmi kara uu noqdo. Talabaad, ilmaha intuu yahay markuu saa u dhashaba in lagu bilaabo, anugu labada waan tijaabiyey alxamdulilah waan ku guulaystay in la bilaabo in lala hadlo. Caawa markuu dhasho habeenka 3 ku bilowba, hooyo sidan kan naaskan ku dhigaya, waan kuu maydhaya, halkan baan ku marinaya, iska wad. Sanad markuu gaadho waxaad arkaysaa ilmihii wax walba fahmaya, hadalkana horey buu u baranayaa, kelmad kasta uu bartayna maaragtay sax buu ugu dhawaaqayaa. Ee waxyaabaha kaloo markaad saa ula sheekaysanaysid la iska ilaalinayo in la iscarab tiro oo kale si ilmuhu aanu kelmadaha khalad ugu baran. Marka labadaas way caawinayaan ilmuhu inuu wax fahmayo noqdo, maskaxdana ka koro, ilma aad waqtina gelisay kaana mustaqil oo kaa maaragtay kaa maarmi karana uu noqdo. Asalaamu calaykum. waa mahadsantahay walaal yaa